عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كيغا يسرا ميديا maxaa sababay qowmiyadeena Soomaaliyeed oo saas isugu duuban oo midnimadeena miyi iyo magaalaba bir lama jabiyaan ahayd inaan isburburno iskumaadno isximino sidii dad kala duwan oo cadow isku ah isku diir fiiqno ugaarteena hilibka u warno maanan ahayn kuwii 1960 dib haddaan celiyo walaalahayga Soomaaliyeed xornimada u soo hoyaatay oo gumaadkiina ka baxeen gumaystaa ogsoonaana ruuxan kula mid ahayn oo xagga diimeed iyo xagga jismiyeedba inuusan sidoo shalay ku galay maantana ku gumaadi doono oo ku gadan doono 1977 maxaa dhacay waxaa dhacay anagoo ogsooneen xaaladihii aan soo wajahay iyo xanuunkeedii ayaa anagoo isla waa xoogaysateen oo awood dhammaystiran ayaa yeelateen dib u xasuusanay walaalaheena gumaadka ku jira ee dalka shisheeyay dhulkeena loo qaybiyay gaajo iyo ducuf anagoo ka baxnay ayaan u dhanbabaqaadnay inaan ishagno oo dhulkeenii xoogga lagu haystay dib gacanteena isugu dayno inaan ku soo celino taasaysan xaalad xun marna lala noqotay marna xaalad wanaagsan la noqotay maadaama cabsi badanna ay jirtay waxaan iloownay laakiinse ama aan marnana aan ku fikirin dadkeena markaas jiray inuu gumaystihii shalay dhulkeena kala qaybiyay horumarteena ka weyn gaaray dadka gacanta ay ugu jiraan ama dawladda gacanta ay dhulkeena ugu jiraan dadkeenana gumaadaya ugu jiraan inay yihiin dad isku diina mowqif diineed xambaarsan iyo ayakii gumaystaha inay diintoodana tahay aas-aaskii meeshii laga soo hiirgashay dalka aan markaas ku wajahanahay dagaal ahaan dagaalkii haddaan galnay ayaa sida tan dhacday waan ku guul dareysanay gumaystihii waana dhabar jabis kaliya nagu muusan akeenine waa noo fikirayo ayagoo leh sida tan soo socota qowmiyadan haddaanan saan ku sii socdaan siyaasadda qaaradda dhan ayay la wareegi doonaan dalalka laldariska ayakana ah waxaan kula saaxiibnay waan ogsoonnahayoo dhulkoodan kala qaybinaan kula saaxiibnay haddaan wax ka qaban weyna arrinta sidaan ku sii socota maadaama nagu xoogaysteenna khasaare ayaa noogu imaan doonta aad noo saameyn doonana xilligii 1977 kadib markuu dagaalkii aan ku jirnay fool kula jirnay dalka dariska uu dhammaado aan dhabar jabno dib u soo laabanay waxaa dhacda qalaasaad iyo mucaarad been ay abaabulayaan dalalka shisheeye ama gumaystaha markaas ayaga u hiilinaya walaalahayga qaaliga waxaan ogsoonahay caalamkoo dhan dowlad walbaba ha ahaato dunida xumaanihii samaanteeda inay wadato waxaan ogsoonahay insaan walbo siyaasiya dowlad hogaamiyana inuu dad yahay bilaadan yahay qaladaadna ka dhexdhici karo laakiin taas anaga kumaana fikirinoo qaladaadkii aan sokeeyaha ahaan anaga dalkeena ka dhexdhacay ayaan waxaan ka hormarinay dalalka shisheeye nagu soo hagan ama foolka nagu soo wajahan waxaa dhacday markaas gumaystihii inuu aqliyeystay sidaan nii sheegana horumar teena ka weyn uu sameeyay waxaa la yiri qof aad garanaynin ama aad aqoonin weligaa handicin ilaa aad ka barato ayakii anakii aan ogsoonahay waxay yihiin ayakana ogsoon yihiin dhaqan iyo diinba waxaan huusanahay ayaa waxay sameeyeen dhaqan caraabi ah ama geel dhaqato ah oo dheelmiyigeena ay ku dhaqmi jireen oo ah waan kala duwannahay si kastoo isku jisminahay
oo boob iyo dhac aan isku geysan jirnay haddaan hermiyi nahay, xoolahana iska dhici jirnay, laakiinse geed aan nabad ugu fadhiisan jirnay inay ayaga noo siyaasadeeyeen oo dalka dhan ay ku faafiyeen, taasoo ay aad uga faa'iidaysteen. mucaarad inay abaabulaan ay ka dhaadhacsiiyaanna inay dowladda kan xukumo ka jismiyad duwan yahay, ka mowqif duwan yahayna kuwa mucaaradka ay ayaga abaabuleen. si kastaba ha ahaatee walaalahayga qaaliga, arrinta meeshaas kumaysa fariisanin. dowladdii markaas siyaasiyiintii xukumayay ayaa xal degdega gaaray inay xal u arkaan inay shacabka kor uga istaagaan, mucaaradkana ay afduubaan, taasoo fikir khaldan ay ahayd, wax arxan daran ay ahayd, aan insaan isku jismiya isku diinaanan ku dhaqmin. laakiinse arrinta way sii socoto, kala dhismaashaha jismiyadda ayaa faa'iido u noqotay badan shisheeyahana soo wajahan. waxaa dhacday markaas inaan foolka fool isugu hor imaano oo dib gurasho aan isugu sameyno, annaga dhexdeenna aan isa saameyno, waxgaradkeeniina foolka fool isku wajahadaan, kuweyna shacabkaana aan dabagalno, ha saxsanaada ama ha qaldanaadee. fikrad uu gumaystaha markaas xambaarsanaa ilaa ayaa haddeerna gumaysto kasta uu xambaarsan yahay ayaa jirta, taasoo ah durbaha ka taklusin ee saaxiib ka dhigo adigoo isfashilin, u dhoola caddeey ee dubo oo gamaari al-uutamana ciidda ka wada suuli. taariikhdaas aan ii soo magacaabay waxaa weeye waxa taariikhyada adduunka ay qorayaan, qowmiyadaha qaarkoodna lagula dhaqmay, haddeertaana 2% ama 5 ay ku nool yihiin, dunidana ku faafsan yihiin, saan la socono walaaleyga qaaliga, taasoo u suurta gashay gumaystihii dowladdii kacaankana ay ku dhacday, qorshihii gumaystaha oo hiirgalay, ku sii adkaanina dhinkaas kaliya, u sii ambadbaxa inaan annaga dhexdeena dabka iska holcino, oo si arxandaraa isku laayno, oo si arxandanaa keena taagta daran iyo keena saqiirkaaba ugu taqlusno. haddii aan oofinay qorshihii gumaystaha oo qolo isku seef qaadanay, maxaa ka dhashay? in haddaan wax lagu magacaabo dib u heshiisiin qorshaysan lagu firiyo magaalo madaxda dalkii aan 1977 dhibka naga soo wajahay, kaasoo 2 mas-uuliyiin lays hor keenay, foolka foolna lasoo hor fadhiisiyey, loo damaashaadana lasaga dhigana dad heshiisiinaya oo dantooda wata. waa dalkii cilada dhan as-aaska nooga imaatay. ma aanan ku fikirin marna inay burburkii aan isgelinay ka kabsano, ma iloowin arrintii aan qaarkeen ka mid ah aan gumaystaha iyo qorshihiisa siduu ahaa, laakiin yaas dhagaysanaya saqiir iyo kabiirba kaliistaliso buu noqday. magaajadii iyo burburkii ayaa aqligeena saameeyey, marka ma ilowsha baa na saameeyey, ma lacag aan ku diin ayaa noqonayo, diintiiaan nagu yaraatay iyo iimaankii. qorshe waxaan ku xigay arrintaas 40 sano ee u dhowaad aan ku meermeeriyo wax la yiraahdo oo ku dhabarjabiyo ay gumaystaha abaabuleen, kaasoo meelna nooga dhicin, meelna naga naafeeyey. cadad yaa xisaab markay timaado inay abaarta noo haleesho, qaarkeen ka mid ah waxay samayn jireen dadkeena gaajeysan inay badar siiyaan, daawooyin meel ku gaarna u geeyaan, meelna hooshoodii midnimada burburiska ee qowmiyadda Soomaaliyeed ay u sii wadaan, dhinac kastana ay uga safeeyaan, taasoo ayakii dhexdooda ama anaka dhexdeena
seefna looga dhigay midna laga dhigay kii seefka lagu goyn lahaa. Saa'id ayay arrintaas noo sii saameysay. Waan isku diirnixi weyne taasoo sababtay wax la yiraahdo waxaa u qabanin iskaa wax u qabso, sidii dad aan isgarab gaban karin oo taag daranoo diirna aan ka naxayn, isku jismiyadna aanan ahayn.